halkan waa barta ciyaaraha. fadlan ha ilaawin subscribe inaad tiraahdo si aad halkan inagula socoto. kulanti wacan oo wanaagsan asxaabta aynu jecelnahay kusoo dhawaada barnaamij taxanaha oo aan kaga sheekay doono taariikhaha xidigaha muslimiinta ah ee ka ciyaara horyaalada qaaradda Yurub kuna xamaasho kubadda cagta. waxaan ka bilaabi doonaa xidiga muslimka ah xulka qaranka Masaarida iyo kooxda Liverpool. Maxamed Salah waa xidig muslim ah kasoo jeeda wadanka Masar kana ciyaara weerarka dhexe waana xidig ku ciyaara lugta bidix. Maxamed Salah magaciisa oo dhameystiran waa Maxamed Salah Hamed Mahrouz Qali. waxa uu dhashay dalka Masar isagoo dhashay taariikhdu markii ay ahayd 15 Juun 1992 waana 26 sano jir. waxaana loo tixgeliyaa Salah inuu yahay ciyaaryahanka afraad ee ugu qaalisan marka laga eego qiimaha uu ka joogo suuqa kala iibsiga ciyaartoyda. Salah waxa uu ku dhashay magaalada lagu magacaabo Nakrik ee ku taala dalka Masar. Salah dhererkiisu waa 1.75 mitir ama 5 feet iyo 9 inji. waxa uuna ciyaaraa weerarka dhexe iyo garabka bidix ee weerarka. Salah ayaa haatan ka tirsan kooxda Reds ee ka ciyaarta horyaalka Premier League waxaana uu xirtaa nambarka 11. Salah ayaa bilaabay kubadda cagta isagoo da'yar sanadii 2004 waxa uuna ka bilaabay kooxda Etihad Bayern da'yarteeda. Salah 2004-2005 waxa uu ku sugnaa kooxda Etihad Bayern. 2005-2006 waxa uu ku biiray kooxda Osman Tanda. sanadii 2005-2006 Salah ayaa ku sugnaa kooxda Osman Tanda. 2006-2010 Salah ayaa u dhaqaaqay da'yarta kooxda Al-Mukawilun. 2010 Salah ayaa waxaa loo soo dalacsiiyay kooxda waaweynka ee Al-Mukawilun waxa uuna ku sugnaa ilaa iyo 2014 waxa uuna u saftay 38 kulan isagoo dhaliyay 11 gool. Salah ayaa wuxuu u soo ruqaansaday dhanka iyo qaaradda Yurub sanadii 2012 waxa uuna ku biiray kooxda ka dhisan wadanka Switzerland ee loo yaqaan Basel. Salah halka uu kusoo caan baxay kooxo badan oo Champions League ah oo wacdaro kaga dhigay kooxda Basel. Salah ayaa ku sugnaa kooxda Basel 2012 ilaa 2014 waxaana u saftay 47 kulan isagoo u dhaliyay 9 gool. marka aragto Basel oo Champions League ciyaareyso u bixayso kooxaha waaweyn ee ka dhisan qaaradda Yurub, Salah magacaas ayuu ku duuli jiray Maxamed Salah. ninka muxuu xidig yahay wuxuu qaab ciyaareed cajiib badan soo qaatay. Salah ayaa waxaa la soo wareegtay kooxda ka ciyaarta horyaalka Premier League ee Chelsea ayaa Salah waxa uu la ciyaaray kulan ka tirsan tartanka UEFA Champions League isagoo in badan kooxda isbaray qaab ciyaareedkiisa tusay. Chelsea ayaana go'aansatay inay xidigan soo caga dhigto garoonka Stamford Bridge ee ku ciyaarta kooxda Chelsea. Salah ayaa waxa uu Chelsea ku soo biiray sanadii 2014 waxa uu ku sugnaa ilaa 2016. Salah fursad badan kama helin kooxda Chelsea waxaana xilligan maamulaya macalinka mayalka adag ee Jose Mourinho kaasoo inta badan xidigan ku dhageystay kursiga keedka. Salah ayaa intii Chelsea uu ku sugnaa waxa uu ku baxay 2 mar oo qaab amaah ah isagoo ugu biiray kooxda Fiorentina iyo kooxda Roma. Salah ayaa Chelsea u saftay 13 kulan oo kaliya isagoo u dhaliyay 2 gool. Salah intii uu Chelsea heshiiskeeda kula jiray waxa uu 2015 qaab amaah ah ugu biiray kooxda Fiorentina ee ka dhisan dalka Italy ciyaarta horyaalka Serie A isagoo u saftay 16 kulan waxaana uu dhaliyay 6 gool. 6 bil oo amaah uu ku joogay kooxda Fiorentina. Salah ayaa waxaa mar kale qaab amaah ugu biiray kooxda ka dhisan caasimadda dalka Talyaaniga ee Rome isagoo ku sugnaa sanadii 2015 ilaa 2016. 34 kulan u saftayna waxa uu dhaliyay 14 gool balse Roma ayaa go'aansatay inay si rasmi ah ula saxiixato xidigan. sanadii 2016 ilaa 2017 ayuu ku qaatay 31 kulan ayuu u saftay 15 gool oo shabaq cusjiyay. guud ahaan Roma wuxuu Salah u saftay 65 kulan tartamada oo dhan isagoo u dhaliyay 29 gool. Salah ya Maxamed Salah
Mo Salah ayaa markale dib ugu soo laabtay horyaalka Premier League wuxuuna ku soo biiray kooxda Reds, kooxda hogaaminaysa horyaalka Premier League. Salah ayaa sanadkiisii ugu horeeyay indhaqabad mucjiso lama arag, lama maqal, lama fiirsan, lama daawan ku soo bandhigay gudaha horyaalka Premier League, isagoo 32 gool ku qaaday gool dhalinta horyaalka. Waxaa jooga Harry Kane, waxaa jooga Sergio Aguero, waxaa jooga xidig waaweyn. 32 gool ayuu ku qaaday Salah. Bal dib ayaan ka eegi doonaa arintaas ku aadan Salah iyo abaalmarintii uu ku guuleystay. Salah ayaa dib wuxuu ugu soo laabtay 2017 horyaalka Premier League isagoo ku soo biiray kooxda ku ciyaarta garoonka Anfield Road ee lagu magacaabo Liverpool. Salah ayaa ku soo bandhigay Anfield intuu ku sugnaa qaab ciyaareed cajiib ah oo in badan aan la aamini karin. Salah ayaa Liverpool u saftay 57 kulan waxaana uu dhaliyay 45 gool. Salah xulkiisa qaranka waxa uu bilaabay sanadii 2010 2011 waxa uu ciyaaray xulka qaranka Masaarida da'dooda ay ka yartahay 20 sano jirada waxa uu u saftay 11 kulan isagoo u dhaliyay 3 gool. Salah ayaa 2011-2012 u ciyaaray xulka qaranka Masar da'dooda ay ka yartahay 23 sano jirada wuxuuna u saftay 11 kulan 4 gool ayuu u dhaliyay. Salah ayaa waxa soo qaatay waxa uu ku soo biiray waxa uu soo dalacay waaweynka hogaamiyaasha xulka qaranka Masaarida isagoo u saftay 62 kulan waxaana uu dhaliyay 39 gool. Mo Salah ayaa hadda ka tirsan kooxda Liverpool waana hogaamiyaha dhabka ah ee kooxda Liverpool ee hadda ku doonayso taa oo hogaaminaysa horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan. waxa ayna 4 dhibcood oo nadiif ah ka horeysa kooxda difaacanaysa horyaalka EPL-ka ee Manchester City uu hogaamiyo macallin Pep Guardiola. Halkan waa barta ciyaaraha, fadlan ha ilaawin subscribe.